in ka badan 10 xildhibaan ayaa dalbaday xilka qaadistiisa duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. haddaba xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro ma ogolaan doontaa dalabkan duqa magaalada Hargeysa xilka lagaga xayuubinayo. Cabdikariin Axmed Mooge oo ku guda jira sanadkiisii afraad ayaa duufaano siyaasadeed oo daamaha Hargeysa ahi ay gilgileen. haddaba ma ka badbaadi doonaa mooshinkan maxay yihiin sababaha xilka qaadistiisa soo dedejiyay. warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. xildhibaanadii ugu badnaa ayaa dalbaday kala fadhi aan caadi ahayn dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, taasi oo ay doonayaan maayirka inay karkaarka ku weydaariyaan ama si xilka kaga xayuubiyaan. Cabdikariin Mooge oo ay ku hadheen 6 xildhibaan oo kaliya marka isaga laga reebo ayaa dhulku ku soo yaraaday iyadoo uu yahay mooshinkii ugu awoodda badnaa intii xilka uu hayay xildhibaano tiradan le'ekii ay saxiixaan ama si mucaaradnimo ah uga soo horjeestaan. qodobka koowaad ee xilka qaadistiisa iyo maamuuska xayuubinta soo dedejiyayna waa xanaftii doorashooyinka ka hadhay iyo shacabka reer Somaliland oo uu kala qaybiyay. xilligii doorashada ololaheeda lagu jiray iyada oo hadallo diiwaanka galay oo uu ku lumiyay shacbiyadii magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge xilligaasi laga qoray. inkastoo uu guuleystay xisbigii uu taageerayay ee wadani, waxaase uu waayay sumcaddii iyo qiimihii uu ku lahaa dadka reer Hargeysa, taasi oo haatan daamaha Hargeysa aanay u sinayn taageeradiisa. qodobka labaad ee soo dedejiyay xilka qaadista Cabdikariin Axmed Mooge duqa caasimadda Hargeysa ayaa falanqeeyayaashu waxa ay sheegeen in uu lumiyay shacbiyadii ugu tirada badnayd kadib markii hadalladiisa iyo ficiladiisu iska hor yimaadeen. Mooge oo qabyaaladda ka faani jiray, sida oo kalena dadku ay ku barteen shakhsi mideeye ah oo Hargeysa cagaarinaya, ayaa waxa uu isugu dhurtay dhinaca qabyaaladda. damacyo siyaasi oo kala duwan ayuu yeeshay, iyadoo ay shacbigii taageersanaa ee codadkii ugu badnaa u huray ku arkeen wajiyo iska hor imanaya, taasi oo haatan keentay in laga daalo hadalladiisii oo shacabka Hargeysa aanay dhageysanba. sida oo kale waa shakhsiyaadka faraha bulshada aadka u fahmay ee ololahoodii ka sameeyay baraha bulshada soo najiitay dhalinyaro tiro badan. humaagyadii uu dhisayay ee siyaasadeed iyo mustaqbalka uu ku dabari lahaa markuu hadafkiisa gaadhay ayaa haatan la waayay, iyadoo shacabkuna ay si weyn ugala xisaabtamayaan. xildhibaanada tan 11 xildhibaan ka kooban ayaa dhammaantoodba waxa ay saxiixeen in ka badan 10 xildhibaan marka laga reebo hal xildhibaan oo magaciisu qoran yahay oo aan saxiixin in mooshin xilka qaadis ah ay dawladdu u ogolaato, taasi oo ay sameynayaan kala fadhi aan caadi ahayn. xildhibaanayaasha faraqeeya siyaasadda Somaliland ayaa sheegay qodobka saddexaad inuu yahay damaca uu leeyahay ee ah noqoshada gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee wadani, kaasi oo lagu heshiiyay sida ilo wareediyo sheegayaan xilligii doorashada ahaana tallaabooyinkii adadkaa ee dhinaca u badnaa sababtii uu qaaday Cabdikariin Axmed Mooge ee ku lumiyay shacbiyadii ugu tirada badnayd. balse damac kale ayaa soo baxay oo wasiirka madaxtooyada Khadar Xuseen Cabdi ayaa isaguna doonaya booskaas oo ay isku deegaan ka soo jeedaan. waa mid ka mid ah ragga ugu saameynta badan xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro, waxaana uu in badan u soo jabhadaynayay Khadar sidii uu xusbiga wadani u guuleysan lahaa. ugu dambeyntiina guga ayaa u hooray, waxaana uu gaaray halkii uu doonayay, waxaana la saadaalinayaa inuu yahay shakhsiga ugu nasiibka badan ee noqon kara gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee wadani. tanina waa sabab kale oo xilka qaadista Cabdikariin Axmed Mooge keentay, maadaama uu damacaas iyo loolanka siyaasiga leeyahay ee mustaqbalka 5 sanadood kadib la odorosayo. xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro ayaan la ogaan karin inay xilka qaadistan iyo mooshinkan duqa magaalada Hargeysa ogolaan doonto iyo in kale. waxaa si la dhowrayaa jawaabta ay ka bixiso wasaaradda arrimaha gudaha.